بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلهم وعن داوديال هل كنيوا تي في سومالي كيبل حرنتي سه مقالة مقدشو كسر دوادا ورركي الدهورنمو أو كوبان ورصحافات كصوب حي وزارة أريمها الدبادة حكومة الصومالية يالغو شاقي إن دولة الصومالية أي قرب تاقنتهاي دولة دلكا السعودية كدي بخلاف سوكرا دحقلي ودمد السعودية يوليبا كندا war-saxaafadeedka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yiri xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay si dhow ula socotay xaaladihii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay xiriirka dawladaha aan walaalahan hay ee boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Canada. war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yiri iyadoo laga ambaqaadayo arrinkan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxay adkeynaysaa taageerada mowqifka diidmada ee dawladda aan walaalahan hay ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ee faragelin dibadeed oo lagu sameeyo arrimaha gudaha faragelintii lagu cadeeyay axdigii qaramada midoobay oo ay ku jirto gobonnimadeeda iyo madax banaanida siyaasado amaba hababka garsooreed oo xiriir la leh shuruucda qaranka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. ugu dambeyntii war-saxaafadeedka ayaa lagu yiri dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u rajeynaysaa Riyadh iyo Ottawa inay ka gudbaan khilaafaadkooda si xiriirka u sii socdo oo saldhig ah kalsooni iyo xushmad isdhaafsi oo labada dal dhex mara. shirkadda diyaaradaha ee Dala Airline oo bilowday in habeenii maalin ay daabusho xujayda sanadkan gudanaysa waajibaadka alle in ku dhow 140 xujay Soomaaliya ayaa habeenkii xalay ka dhoofay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda magaalada Jidda ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta si ay u gutaan waajibaadka xajka ee sanadkani. عسير يوسف شيخ وكترسن قيبته اوبريشنka ee shirkadda Dalo oo saxaafadda xalay kula hadlay garoonka aadan cadde ee Muqdisho ayaa wax uu sharxaya duulimaadka shirkadda ay bilowday xilliga habeenkii iyo tirada xujayda ay xalay ay qaadeen. waa Dala Airlines oo xujayda Soomaaliyeed u soo adeegaysa u soo khidmeynaysay ilaa 1995 ilaa hadda oo sanadku yahay 2018 waxaan hadda diyaar u nahay inaan halka ka sii ambaqaadno oo sii laba laabno dadaalka xujayda iyo shacbiga Soomaaliyeed aanu qabanayno marka Dala Airlines oo daabulaysa xujayda Soomaaliyeed oo waliba waqti habeennimo international airport Muqdisho ka qaadaysa ku soo dhawaada gobolka Mudug magaalada Galkacyo waxaan ka soo baxnay galabtay xilli dambe halkaan nimi haddana waa habeennimo u jeedaan insha Allah taala xujay Galkacyo iyo mid Muqdisho looga daray waa sii jeedina Jidda إن شاء الله برينا وحنا سوينا مدينة وحنا سلامة يا أمد الصومالية لما تدي مسلمين خاصة وحنا سلامة يا أمد أكسر حاجنا يقبل كمودو قال كعيو وحنا لا هاي ده أنا وحنا كأمانة يا سيرفيسك وناسن أي أسمعنا سحوجيده أما حاجة هنقطة جدها أما بناك هنقطة مركي حاجة على تبوه هنقطة أما ده جديد هنقطة هذا بني سلامة يا رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية مدني حسن علي خيري هي مقالة خرطوم دلك السودان كلن قاتي مدحوينها دلك السودان عمر حسن البشير. رئيس الوزراء جمهورية الصومالية حسن علي خيري هي مدحوينها السودان عمر حسن البشير هي مقالة خرطوم كوي شيء كل المهمة يقول هاللين أتكينت حرير كسوجرين كإلا بدل دل أمنيجا كوبعينتا دقالها horumarka maalgashiga iskaashiga horumarka gobolka iyo guud ahaan labada wadan. kulan miradhala ayaan la yeeshay madaxweynaha Suudaan waxaan aad ugu mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan waxaan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka qotada dheer ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Suudaan amniga horumarka kobaca dhaqaalaha maalgashiga iyo sidii aan sidii kaashan karno arrimaha gobolka iyo sidii Soomaaliya ay u qaadan karto dowr dhaxalgal oo ku saleysan khibradeena iyo kheyraadkeena ayuu yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa Suudaan ugu mahadceliyay taageerada dhanka waxbarashada isagoo hoosta ka xariiqay in xilli adduunyada kale ay u arkaysay Soomaaliya rajo inaysan lahayn Suudaan ay garwaaqsatay in la caawiyo si loo siiyo fursad ay ku soo kabato waxaana uu sheegay ra'iisul wasaaraha in ardadii Suudaan wax ka baratay ay qayb ka qaateen dib u dhiska dalka Soomaaliya. qiyaastii 7,000 oo arday Soomaaliya ayaa wax ka barta dalkan kumanaan kalena hore ay u qalin jibiyeen waxayna gacan ka geysteen dib u dhiska dalka ayuu yiri ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. maamul goboleedka Jubbaland ayaa war ka soo saaray mashaqo dhawaan ka taagneed duleedka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. golaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland ayaa go'aan kama dambeys ka soo saaray khilaaf ku saleysan deegaameysiga oo ka jiray
deegaanada hoostaga magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland. ugu yaraan 15 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed maalmihiin la soo dhaafay ka dhacayay deegaano hoostaga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose kaasoo salka ku hayay muran dhinaca dhulka ah. kadib markii golaha amniga Jubbaland uu dhageystay ayaa lagu yiri warbixinta taliyaha booliska Cornel Maxamed Nasir iyo gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibrahim Timajilaac waxay soo saareen go'aamada soo socda. in booliska Jubbaland qaybta gobolka Jubbada Hoose ay baaritaano dhab ah ku sameeyaan dambeeyadii dhacay cidii ka dambeysay iyo nuxurkii sababta khilaafka keentay. 2 in tuulada uu khilaafka ka taagan yahay la joojiyo dhismaheeda haddana la tirikoobo inta dhisme ee ka jirta. 3 in la soo qabto sharcigana la horkeeno dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkii ugu dambeeyay ee lahaa dhimashada iyo dhaawaca iyadoo la xaqiijinayo tirada dhimashada iyo dhaawaca jira. 4 waxa la farayaa ayaa liiri booliska Jubbaland qaybta gobolka Jubbada Hoose in inta la baarayo dhacdooyinka soo noqnoqday ay guryahooda ku ekaadaan. ugu dambeyntiina dawladda Mareykanka ayaa mar kale cunaqabateyn ku soo rogtay dalka Iran iyadoo xiisad diblomaasiyadeed ay ka dhalatay arintaasi. dawladda Mareykanka ayaa mar labaad ku soo rogtay cunaqabateyn dalka Iran. cunaqabateyntan ayaa markeedii hore Iran loogu soo rogay si ay u dhinto kobcinta iyo bacriminta hubka nukliyeerka ah taasoo ugu dambeyntii sanadkii 2015 heshiis caalami ah looga qaaday. madaxweyne Donald Trump oo isagu aaminsan in Iran lagu degdegay cunaqabateyntii laga qaaday ayaa si joogto ah u cambaareeyay dalka Iran iyo madaxda maamusha oo u arko kuwa kaligood taliyayaal ah. waxaana hirgashay saqdi dhexe ee xalay cunaqabateyntii dalka Mareykanku uu ku soo rogay dalka Iran muddo 3 bilood ka hor. madaxda dalka Iran ayaa iyagu u arka cunaqabateynta uu Mareykanku saaray mid aan dalkooda wax saameyn ku yeelan. deeqasan dubadowa Somali Cable TV Nairobi. daawadayaal waxaa halka ku eg warkii oo kooban ee duhurnimo aad kala socoteen TV-ga Somali Cable xaruntiisa magaalada Muqdisho. waxaa idin waramayay anigoo Cabdi Fataax Macaan Nuura. warkan lacana intaan ku mid doona daawadayaal waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.